بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داود اللمانتين بميل بدونيدا كجوجتان كسو dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay inaan kaga hadalno doorashada dalka Mareykanka oo ay wararka sheegayaan in dib loo doortay madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump isagoona kaga adkaaday haweeneyda ee madaxweyne ku-xigeenka ahayd dalkaasi ee Kamala Harris mawduucyo dhowr ayaan ka eegi doonaa doorashada ee dalka Mareykanka dib u soo noqoshada Trump maxay ka dhigan tahay waxyaabihii hore kaga hadlay markii ololaha ku jiray ee kamid ahaayeen dhinaca socdaalka iyo arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga oo ka hadlay iyo dagaalada bariga dhexe iyo sidoo kale qaaradda Afrika barnaamijkan wuxuu toos idinkaga imaanaya telefishinka Somaliland TV waxa ugu heliya gudoomiyaha telefishinka Maxamed Shariif kusoo dhaw Maxamed Shariif sida la socdo dalka Mareykanka isbuucan wuxuu galay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ay si weyn kaga dubnaa doorashooyinkii hore ee dalkaasi waliba aad ay u tartamayeen xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga xisbiga jamhuuriga ka socday madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump oo haatan la sheegay in dib loo doortay oo ku guuleystay codadkii la dhiibtay iyo madaxweyne ku-xigeenka haatan haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo dimuqraadiga ka socota sida guud marka doorashada dalka Mareykanka iyo saameynta uu ku leeyahay caalamka maadaama Mareykanka la sheegay inuu yahay awoodda ama wadanka ugu awood badan caalamka soo dhaw waa dhawahay agaas Maxamed Deeq aad u mahadsantahay runtii shalay ilaa iyo xalay ilaa waliba saaka aroonimadii hore waxa si toos ah markaasi loogu warsugay ama loogu dhursugayay natiijada saxda ee doorashada dalka Mareykanka ee Donald Trump iyo waliba soo kale Kamala Harris oo labada musharax uga cad ay ku tartamayeen ay ahaayeen run ahaantii doorashadan tan iyo xilliga ay bilaabatay hadalhayn aad u fara badan ayaa ka socotay oo ahayd in Donald Trump mar walba markaas uu cadcada oo u muuqatay inuu mar kale uu ku soo laaban karo waa madaxweynihii afartanaad man filaya ee dalka Mareykanka mar kale ee markaas ku soo laabanayo saaxadda siyaasadda ee dalka Mareykanka run ahaantii inta badanna siyaasiyiinta iyo waliba sidoo kale dadka ka falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska iyo waliba sidoo kale caalamka qaybihiisa kaleba runtii siyaasadda Trump aad ay ula dhacaano waxa waa nin inta badan lagu tilmaamo nin aad Soomaalida u nacab oo walibana ololihiisi qayb ay ka tahay in Soomaaliya nacabkiisu uu ku muujinayo soo marka waxaan dhihi karnaa arrimaha doorashooyinka ee dalkaasi Mareykanka qabsoomay runtii waa arrimo inaba aan caadi ahayn oo walibana natiijadeedina mar horeba la saadaalinay inkastoo madaxweynaha markiisa hore uu sheegay in u muuqdo inuu markaasi uu soo fuuri karo mar kale kursiga madaxtinimada ee dalkaasi aad u maasan tahay marka dib u soo noqoshada Donald Trump maxay kaga dhigan tahay dalka Mareykanka guud ahaan iyo caalamkaba gaar ahaan arrimaha haatan Mareykanka maadaama uu galaangal xoogan uu ku leeyahay wadamada caalamka sida bariga dhexe iyo Afrikada kale hadii aan nahay Soomaalida xataa inuu aad ciidamo soo Mareykan ay tababaraan ciidamada kamid ah Soomaaliya waliba inta badan dhaqaale iyo sidoo kale kaalmo siiya dalka Soomaaliya marka soo noqoshada Donald Trump maxay kaga dhigan tahay aad u mahadsantahay runtii soo laabashada Donald Trump horto marina waa caqabado marina waa fursad Soomaaliya marka la joogo marka laga tago arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale madaxda marka isku adeegsanayaan run ahaantii waddan muhiim ah oo waayo Donald Trump hadii mar uu madaxweyne halkaas uu ka yahay sida hadda ciidamada Mareykanka halkan uu ka joogo halkaas lagu soo tababaro oo laga yaabo mushaharaadkooda iyo xitaa qayb ka mid ah inuu xagga uu ka imaanayo dhanka dawladda marka loo fiiriyo waa uu waqtigii iyo wada shaqeyntoodii hore laakiin xaaladda ugu adag ee hadda hadalhaynta weyn ka taagana waxay tahay soo galootiga Soomaalida maadaama dad Soomaaliyo fara badan intuu joogay Joe Biden si xoogan markaas ay ku galeen Soomaali aad u fara badan ay halkaas ay ku galeen laakiin caqabad ay ku noqon kartaa la oran karaa haddan waqtigan la jooga oo Donald Trump mar kale u muuqdo in uu saaxadaas ku soo laabtay waxa ka dhawaajisay arrimaha soo galootiga Soomaalida ay ugu badan tahay waxa jiray dhowrkii sano ay ugu dambeeyay haatan ay joogeen xisbiga dimuqraadiga oo Joe Biden madaxweyne ka ahaa Soomaali badan ayaa si sharci darro ah sida la sheegay ay ku galay dalka Mareykanka markii la joogay ololaha Donald Trump ololihiis waxa kamid ahaa in si weyn uu la dagaalami doono arrimaha socdaalka ama soo galootiga sharci darrada ah haba ahaataan wadamada muslimiinta sida Soomaaliya ay ku jirto marka caqabadaha dadka Soomaalida ah halkaas tagay ama sanadii hore ku biiray
ay kala kulmi karaan ama hadda doorashada la doortay Donald Trump ma la dhihi kara caqabad ay ku noqotay ama kuwa haatan processka ama sharciga u socda qaxootiga ku jiro maadaama ognahay sanadkii koowaad ee markii hore la dooranay 2016 in waxyaabo badan uu cancel gareeyay oo safar Mareykanka lagu digal rabay arrimaha qaxootiga ah caqabad ma ku noqon kartaa marka Soomaaliya ama dadka kale soo galootiga ah aad u weyn waliba caqabad oo aad u xoogan ku yeelanaysa waayo xisbigan Joe Biden intuu joogay Soomaali aad u fara badan si sharci darro ah ku gashay haday doonaan tahriib ku tagaan haday doonaan wadamada kale intay maraan si darbi bood waxay lahaan oo kale haba ku tagaane hadda caqabad weyn ku noqon karta waayo qofkii sharci darro ah ama sharci aan haysan halkaas ku nool way ku adkaanaysa Mareykanka dhexdiisa inuu ka dhex shaqeeyo oo maxaan ku raadaaye oo dhaqaale uu ka sameeyo maxaa yeelay haddii uu sharci helin waxa qasab ku ah in markaas uu kala kulmi karo ciidamada halkaas jooga ay gacanta ku dhigi karaan dibna loo soo celin karo taasi oo saameyn weyn ku yeelan karto qofkii rajadii iyo mustaqbalkii uu eegsanayeen halkaas ugu burburi karto waayo waxaa jirta waqtigii hore uu isagu joogay dad badan oo la soo celiyay oo xaalad caafimaad darro xitaa markay dalku dib ugu soo laabteen yani niyadjabka ay kala soo kulmeen halkaas depression ay ka qaadeen soo marka waxaan dhihi karnaa aad ay ugu adkaanaysa Soomaalida sida sharci darrada ay hadda ku gashay ee halkaas joogta in ay sharci fudud ay ku helaan waayo ninkan waa nin aad waliba Soomaalida u nacab haddana aragtiyanba dadka soo galootiga ah lama tusi karo soo marka waxaan dhihi karnaa caqabad weyn ay ku noqonaysaa oo waliba dhibaato damage weyn ku yeelan karto Soomaalida waliba da'yarta Soomaaliyeed ee sida rafaadka ku gashay waayahay maxay noqon kartaa marka rajada dadka hadda doonaya in ay process ama nidaam qaxootinimo ama arrimo kale ku galaan dalka Mareykanka ee rajo weyn ay ka qabeen dhowr sano xataa dad sugayeen ama hadda u soo baxay ay jiraan maadaama hore u jireen dad badan laga kala sangareeyay maxay noqon doontaa rajada iyo haatan dadkaasi rajadaas markaan qiimeeyno aragti ahaanteeda kulli horta waa mid hal bacaad lagu lisay inay naqan karto waayo haddii bas sharci aadan ku tagaynin kuwii kala horeeyay hadii la soo celinayo micno weyn ku keenayso adeeg waqtigan la joogay inaad si toos ah halkaas u aado sababtoo ah de waqtigiiba waxa naqanayo dadkii ka horeeyo meesha joogo min hada al-yawm joogo oo sharcina haysan waqtiga ninkan uu imaaday haddana aysan iyaguna kuwan ay cusub yihiin hadda ay process u socdaan oo hadda ay rabaan inay galaan de waa nasiib darro oo waliba ninkii ugu xumaanana doorashada ugu soo aaday taasi oo hadda waxaan ku tilmaami karnaa ay tahay in ay caqabad weyn ay ku tahay Soomaalida hadda rabta nasiibkooda siigay nasiibkooda siigay oo in ay dalkii ku haminayaan inay galaan laakiin waxaan dhihi karnaa waa dad inay dib u sugaan marka doorashada kale iyo wixii soo bixi doona marka haddaan aad u maasan tahay Maxamed Shariif waxa hadii aan fiirino dhinaca bariga dhexe sida la socoto muddo sanad haatan laga joogo Israel ayaa waxay ka wadaa xasuuq aad u daran ay ku hayaan dadka reer Falastiin waxa haatan dagaalka dhinaca kale ku soo biiray dalka Lebanon oo halkaas ay joogaan xubnihii Hezbollah oo halkaas fariisimo ku leh dagaalka bariga dhexe xisbiga dimuqraadiga haatan laga guuleystay galaangal weyn oo ku lahaa taageerana siinay Israel Joe Biden sidaan la socon aad ugu soo horjeeda arrimaha Israel ay ku wado marinka Gaza ama bariga dhexe ay ku wado waliba aad uma taageersana markii si loo fiirsho xisbiga kale hadda laga guuleystay ma la dhihi karaa marka heshiiskii Mareykanka ahaa taageero u siinay Israel haatan ma ku taageeri doono oo ka joojin doona gumeysiga waxyaabo ay ku wadaan Israel dadka reer Falastiin mise heshiis oo kala gali doona arintaasi mise wuxuu dhihi doonaa arintaasi garab mid ku siinayna in dad maata ah aad laysaan maxay noqon doontaa marka isbedel ku imaan doono arrimaha bariga dhexe gaar ahaan arinta Falastiin iyo Israel horta arintaasi waa arin aad u culus oo waliba maanta miidiyaha iyo waliba dunida inteeda kale si weyn indhaha ugu hayaan waayo dadka halkaas lagu xasuuqay waxay ahaayeen dad islaam ah oo masaakiin ah oo maxaan ku yiraahdaa dad iska kooban iska ah hadda waxay u muuqataa mar kale maadaama yahuud ay si weyn isku taageerto mar walba in taageero weyn u fidin karo maxaa yeelay wax xisbi aad u taageeri jiray oo fan iyo dhaqaale walba uu ku bixin jiray ninkan waa nin aad dhaqaale hanti u haysto oo haddana hadii marba uu hoggaanka dalkii uu haayo waxaa la dhihi karaa aragtiyan xaaladaasi in ay niyad weyn ku noqon karto Falastiin waayo ninkan wuxuu aad taageero buuxo ugu yahay Israel iyo waxyaabaha kale oo markaas la halmaala
dagaalkooduna muddo fara badan ayuu jiitimayay oo xaaladoodu aad u cakirneed oo muddo sanad markaan ay kusii dhowdahay diinsan wuxuu ku darsaninba waxayna u muuqataa in waqtigan la joogayba dee marka la rajabeel kale ay la kulmi karaan oo haddii Donald Trump meesha imaaday oo xisbigiisii iyo isagu ay taageero weyn ay u fidiyaan oo isagu kaalmaati weyn ay u noqdaan marka waxay ku noqon kartaa Falastiin yani nijab baan oran karnaa laakiin Ilaahay uu baryayna markasta inuu ka guuleysiyo oo mar walba cadowgeedii uu hoos u maro iyadoo ay u sareedo waa marka arrimaha geeskaasna waa aad u cakirin yihiin oo waa xaaladeeda waa la socdaa oo dunida oo dhan ay indhaha ku wadayso marka in wax badan iska bedeli doonaan waa rajaynaynaa haddii ninkan uu ku taagsan dee kulli dad kale oo muslim ama islaam ah u garab istaagan kulli inaan la weynayna aaminsanahay waaga aad u maasan tahay daawadayaal waxaan jeclahay inaan taas ku soo gabagabeeyo barnaamij gaar ah